بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa suuratu baqara reer bani israa'iil qisooyinkeedii ayaana noo bilowday waxaa noogu soo dambaysay in la faray inay rumeeyaan qur-aankuu alla soo dejiyey kaasoo rumaynaya wixii micigooda ahaaday ha ahaanina buu yidhi ilaahay kaafirka kuwa u horeeya ee kitaabkaa beeniya aayaadkaygana ha ku gadanina haman iyo lacag qaliil ah ani keligayna iga cabsada xaqa iyo baadilka ha isku dhex darina oo xaqii aad qarisaan idinkoo og salaada ooga sakadana guta warkacuu maca araakiciin inta rukuucaysa micigoodana la rukuuca ata'muruuna annaasa ma dadkaad faraysaan bilbiri samafalka iyo wanaagga watansawna ma iloobaysaa oo ma ka tegaysaa birigiina anfusakum nafafyaalkiina oo idinku raaci maysaan wanaagga oo ma samaynaysaan miya wa antum adinkoo tatluuna alkitaaba kitaabkii aqrinahaya afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanayn culimmadoodii ayaa si qaasa loola hadlayaa xaqii wanaaggay u sheegi jireen mararka gobolka mid ah moxamed xaq miya calaamaadkiisa waad noo sheegi jirteenna ma raacaynaa raacay dhihi jireen ayaguna ma aysan raaci jirin sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu ku eedaynayaa ragga inay dadkana macruufkii biriga faraan naftoodana ay ka tagto ata'muruuna annaasa ma dadkaad faraysaan ood amraysaan buu yidhi ilaahay bilbiri biriga iyo samafalka wanaagga iyo khayrka oo watansawna ma iloobaysaa ma ka tegaysaa oo ma samaynaysaan miya anfusakum nafafyaalkiinana wa antum adinkoo weliba tatluuna alkitaaba kitaabkii aqrinaya oo wanaagga iyo khayrka ku arkaya afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanayn ummadoo khayrka la faro naftaada aad ka celiso waa cuquubo tan ugu adag sidaa darteed ayay diintu islaamku in badan diidaa in qofku dadku wanaagga amro naftiisana uu ka tago waciid adag baa ku soo arooray rajul baa lala imaanayaa maalinta qiyaamo markaasaa naarta lagu tuurayaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam mindhicirkiisaa naarta ku soo qubanaya saasuu ugu wareegayaa sida uu dameerku ugu wareego marka la samaynaya macsara shiidka markuu saa ugu wareegayoo kale ahlu naarkaa ku soo ururaya markaasay leeyihiin yaa fulaan maa laka hebelow maxaa ku helay sawtaad ahayd kii macruufkana fara munkarka naga reeba haabuu leeyahay waan idin amri jiray mana la imaan jirin waan idinka reebi jiray waana idinkaga gadaalmari jiray yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun baa noo imaan doontaa tiyay markaa la mid tahay ata'muruuna annaasa ma dadkaad faraysaan bilbiri samafalka khayrka iyo wanaagga watansawna ma halmaamaysaa oo ma ka tegaysaa anfusakum nafafyaalkiina wa antum adinkoo weliba tatluuna alkitaaba kitaabkii akhrinaya afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanayn wastaciinuu kaalmaysta bialsabri waasalaad umuurihiina adduunka iyo tan aakhiraba sabir iyo salaad u kaalmaysta buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabir kaalmaysta iyo wasalaati salaadba sabir iyo salaad umuurihiina adduun iyo danihiina adduun iyo ka aakhira sabir iyo salaad u kaalmaysta wa innahaa ayadu waa salaadee la kabiiratun waa mid ku weyn oo ku culus ilaa cala alkhaashiciina khaashiciinta dushooda maahane dadka markay tukanayaan salaada ku khushuuca salaada dhadhansada salaada macmacaansada ma ahee inta kale way ku culus tahay buu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala idan sabirka iyo salaadu waa laba maado oo dadka u kaalmeeya uguna kaalmeeya adduunkoodii aakhiradooda qofkii raba inuu diinta ku camalfalo waa inuu sabir iyo salaad kaalmaystaa qofkii raba dadka dhibaatadooda inuu ka badbaado waa inuu sabir iyo salaad kaalmaystaa
qofkii raba in ilaahay wax u yasiro waa inuu sabir iyo salaad kaalmaystaa. waa labada arin ee loo kaalmaysto danaha adduun iyo kuwa aakhiro. wastaciinuu u kaalmaysta oo waxaad u kaalmaysataan bisabri sabarka iyo wasalaati salaada. wa innahaa salaadu lakabiiratun way ku culus tahay inay la yimaadaan oo ay tukadaan ilaa cala alkhaashiciina khaashiciinta dushooda maahane aladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna malaynahayoo yaqiininaya annahum ayagu mulaaquu inay yihiin kuwii la kulmahaya rabbihim rabbigood wa annahum ayaguna ilayhi raajicuuna xaggiisa u laabanaya xaggiisa inay u noqonayaan oo loo celinayo oo la xisaabayo waxay qabteen abaalkeeda la siinaya kuwa yaqiininaya wayo kuwa khaashiciinta ah. ilaan waa dadka liibaanee rabbi yidhi qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. aladiina kuwaasoo yadunnuuna danninahayo malaynahayo yaqiininaya annahum mulaaquu rabbihim inay rabbigood la kulmayaan wa annahum ayaguna ilayhi ila allah ilaahay xaggiisa raajicuuna kuwa u laabanayoo loo celinaya inay yihiin kuwa markaa yaqiinsan. yaa bani israa'iila reer bani israa'iilay udkuruu xusuusta nicmataya nimcadayda xusuusta allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiina wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka fadilay oon idinka saramarsiiyey cala alcaalamiina caalamka dushii uunkay dushii ayaan idinka fadilayoo adduunkan idinka kor qaaday. saa darteed nimcada korkiina ahaatay ee aan idinkugu nimceeyey xusuusta. yaa bani israa'iila reer bani israa'iilay udkuruu xusuusta nicmataya nimcadayda xusuusta allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey oo aan idinkugu nimceeyey calaykum korkiina wa annii aniguna fadaltukum waxaan idinka fadilay cala alcaalamiina. ummatu muxamedka ma fadli badna laakiin waxaa loola jeedaa ama dhici karta in loola jeedo zamankooda caalamkii jiray iyo caalamkii zamankoodii wakhtigooda ayaa markaa ilaahay ka fadilay subxaana wa tacaala. wattaquu waxaad ka cabsataan yowman maalin laa tajzii aysan u gudaynin nafsun nafi can nafsin naf kale xaggeeda shay-an waxba. maalin naf kale aysan wax u taray oo qof walbaa nafsii uu odhan doono maalintaana ka cabsada. walaa yuqbalu aan laga aqbalayn minhaa nafsaddii xaggeeda shafaacatun wax shafaaciyo ergayn ah. walaa yu'khadu aanan la qaadaynin minhaa xaggeeda cadlun wax furasho ah. wax cadli iyo magdhow iyo madax furashoo laga qaadayana aysan jirin. walaa hum yunsaruuna aysanna ahayn kuwii loo gargaaro. maalintaa dhib ka badan nafi naf wax u qaban karin aan shafaaciyo ergayn laga aqbalayn aan cadli madax dhow iyo madax furasho aan laga ogolaanayn aanana haddana loo gargaaraynin. maalintaa ka cabsada. wattaquu reer bani israa'iilay dhowrsada oo waxaad ka cabsataan yowman maalin laa tajzii aysan u gudi karin nafsun nafi can nafsin naf kale xaggeeda shay-an waxba. walaa yuqbalu aan la aqbalayn minhaa nafsaddii xaggeeda shafaacatun wax erga ah. qof ergaynahayoo ka ergaynaya hadduu yimaadana laga ogolaan maayo, laga aqbali maayo. ayadoo hadday erga raadsato laga aqbali maayo. walaa yu'khadu minhaa cadlun wax cadli ah iyo furashana aan laga qaadaynin. walaa hum aynana ahayn yunsaruuna kuwii markaa loo gargaarayo. waid najaynaakum nimcooyinkii ilaahay u galay gobol ka midaana loo tilmaamayaa. ninka fircoon la yidhaahdaa aad u gumaysan jira oo cadaadin jiray. heer wuxuu gaaray wiilasha uu gem ka dhigu laayo, dumarkanuu iska sii daayo. sidaa darteed buu ilaahay qayb ka mida u sii tilmaamayaa. waid najaynaakum wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilay id najaynaakum wakhti aan idinka najaynoon idinka badbaadinay min aali fircawna fircoon aalkiisa. muxuu samayn jiray? yasuumuunakum waxay idin dhadhansiin jireen suu'a alcadaabi cadaabkiisa ugu xun. yudabbixuuna waxay qalahayeenay gowraci jireen abnaa'akum wiilashiina
wayastaxyuuna waxay ka xishoonayeenay dayn jireenay iska dhaafi jireen nisaa'akum haweenkiina wa fii daalikum kiina balaa'un waa balay imtixaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay cadiimun ee markaa weyn. waa ummad dhan oo lagu xukumay in wiilashooda la gumaado, gabdhahoodana la addoonsado, biyaha lagu dhaamiyo. taasuu ilaahay ka badbaadiyey waid najaynaakum wakhti aan idinka korinay xusuusta min aali fircawna fircoon ahalkiisa yasuumuunakum xaalay idin dhadhansiin jireen suu'a alcadaabi cadaabkiisa ugu xun. yudabbixuuna waxay qalahayeen abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna waxay ka xishoonahayeenay ka sariigan jireen nisaa'akum gabdhihiina wa fii daalikum kiina najaha iyo badbaadka ah balaa'un waa nimco oo min rabbikum cadiim ama wa fii daalikum kiina iyo waxa ay idinku samaynahayeen balaa'un waa imtixaan iyo balo oo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaatay cadiimun ee markaa weyn. waid faraqnaa wadkuruu xusuusta haddana id wakhti faraqnaa aan kala qaadnoon idin kala farqinoon idin kala furnay bikum adinka albaxra badda. waa xilligii intay carareen fircoonna uu ka daba tegey meel ay u baxaanna ay waayeen, rabbi ayaa badda u kala dhambalay subxaana wa tacaala. waid faraqnaa xusuusta wakhti aan idin kala jeexnay bikum adinka albaxra baddi fa anjaynaakum waan idin badbaadinay oo waan idin kornay idinka wa agraqnaa waan maashaynoo waxaan badda ku qarqinay aala fircawna fircoon aalkiisa. wa antum adinkoo tanduruuna arkahaya idinkoo fiirinaya buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. bacdamay sidaa tahay ayaa waxaa weli loo tilmaamayaa nimcooyinkii ilaahay reer bani israa'iil u qabtay. baddaa loo kala dhambaloo loo kala jeexay, kolkaasay gudbeen. ilaahay ayaa ku qarqiyey cadowgooda ayagoo arkayoo u jeeda. waid waacadnaa xusuusta wakhti aan la ballannay waid waacadnaa wakhtigii aan la ballannay xusuusta waid waacadnaa muusaa nebi muuse 40 laylatan 40 habeen ayuu ilaahay la ballamay. qur'aankay noogu imaan doontaa 30 yowm wa atmamnaaha b10 toban baa loogu daray si loo soo siiya kitaabkii towraad ahaa. waid waacadnaa waxaad xusuusataan wakhti aan la ballannay muusaa nebi muuse 40 laylatan 40 habeen kadib inuu yimaado meeshii ballanta. uma kabacdina uma ittakhadtum kadibna waad yeelateen oo waxaad ka samaysateen alcijla dibigii baad ilaah ka dhigateen min bacdihi nebi muuse kadib. muuse dihaabkiisii soo bixitaankiisii ka bacdi yaa dibi caabudeen. wa antum idinkoo daalimuuna daalimiin ah, idinkoo kuwa dulmi falay ah ayaad xaaladdaas samayseen buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. xilligii nebi muuse alla la ballamay kadibna uu ku soo dhaafay walaalkii haaruun intuu ku soo maqan yahay ballantii alle yay dibi caabudeen. qisada ayadoo dheer bay noo imaan doontaa. ninka saamiri la yidhaahdo ayaa wuxuu tilmaamayaa intuu u soo bixiyo dibi sansaan leh kadibna quwaarayoo codaynaya yuu leeyahay haadaa ilaahukum wa ilaahu muusaa fanasii. kani waa ilaahiinii iyo muuse ilaahiisiiyo wuu iloobay ee markaa caabuda. tiyuu marka ilaahay tilmaamayaa waid waacadnaa wakhtigii muuse aan la ballannay muuse 40 laylatan 40 habeen. uma ittakhadtum alcijla dibigii baad ilaah ka dhigateen min bacdihi muuse soo tegitaankiisii kadib. wa antum daalimuuna idinkoo ah kuwa dulmi falay. uma cafawnaa kadibna waan idinka cafinay cankum xaggiina min bacdi daalika markaa kadib. lacallakum waxaad mudan tihiin reer bani israa'iilay tashkuruuna inaad shukrisaan. tii baan idinka saamaxnay waan idinka saamaxno waan idinka cafinay. towbaa korkiina lagu qoray. uma cafawnaa cankum xaggiinaan ka cafinoon ka saamaxnay min bacdi daalika markaa kadib. lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad mahadcelisaan. waid aataynaa muusa alkitaaba waalfurqaana waxaad xusuusataan haddana waid wakhti aataynaa aan siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii aan siinay waalfurqaana furqaanna aan siinay. kutub kastoo alla soo dejiyaa furqaan ah waayo xaqii baadilkuu kala bixiyaa. kitaabka nebi muuse la siiye waa towraad,
asaga laftigiisa furqaan ah. waid aataynaa wadkuruu xusuusta id waqti aataynaa aan siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii aan siinay waalfurqaana furqaankii aan siinay lacallakum waxaad mudan tihiin tahtaduuna inaad ku hanuuntaan, kitaabkaa inaad qaadataan ood dhaqan gelisaan ood ku camalfashaan siaad u hanuuntaan, taasaad markaa mudan tihiin. waid qaala muusaa xusuusta id waqti wadkuruu xusuusta id waqti qaala muusaa nebi muuse uu ku yidhi liqowmihi qoomkiisa yaa qowmi qoomkeeyow innakum adinku dalamtum waad dulmiseen anfusakum nafafyaalkiina biitikhaadikum yeelashadiinnii alcijla dibigii aad ilaah ka dhigateen baad naftiinnii ku dulmiseen. ee fatuubuu towba keena, war u soo laabta ilaa baari'ikum rabbigiin u soo laabta, baarigiina u soo noqda, faqatuluu laaya oo dila anfusakum nafafyaalkiina. waayo toobakeenkoodaasaa ahaa kii dibiga caabuday kaan caabudin inuu dilo. faqatuluu anfusakum nafafyaalkiina laaya, daalikum kiinaabaa khayru lakum idin khayr badan cinda baari'ikum baarigiina iyo rabbigiin xaggii. fataaba wuu soo towbo keenay calaykum korkiina, ilaahay wuu ku soo laabto wuu idinka towbo aqbalay. innahu ilaahay huwa ilaahay attawaabu waa alla tawaab ahoo towbad aqbal badan, alraxiimun haddana naxariis badane. ilaahay waa alla tawaab ahoo addoommadiisa markay towbo keenaan towbada ka aqbala, haddana raxiim ahoo naxariis badanoo cadaabka aan durba ku soo dadejinin. waid qultum yaa muusaa waxaad xusuusataan waid qultum wakhti aad dhahdeen xusuusta yaa muusaa muusow lan nu'mina ku rumayn mayna laka adiga xataa intii nara allaaha alla aad naga tusisoon ka aragna jahratan si caddaan ah. ilaahayna tusi bay dhaheen. xataa nara allaaha ilaa ilaahay jahratan si caddaana aanu aragno oo aadna tusiso annagu ku rumayn mayno. waayo mar allaala markii lala ballamay ayuu ilaahay wuxuu amray waxay doorteen inay ilaahay hadalkiisa maqlaan. markaasuu 70 nin oo xul ah oo qoomkiisii ka mida uu doortay. waاkhtaara muusaa ilaa qowmihi 70 rajulan limiiqaatina, makaanu ballankeenii 70 rajul ayuu u soo doortay. mar allaala markay meesha yimideenay hadalkii alla maqleen bay dhaheen arina allaaha jahra, si caddaana noo tusi, na tusi waxa hadlaaya. jibriil baa loo soo diray, hal mar buu ku qayliyey, dhammaantood meeshay ku dhaceen. nebi muuse wuxuu ka baqay inay dhahaan muuse raggi wuu soo dilay, wuu soo laayay inay dhahaan, alluu tuugay, allana naftooduu ku soo celiyey subxaana wa tacaala. tii buu rabbi tilmaamayaa. waid qultum waxaad xusuusataan wakhti aad dhahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina ku rumayn mayna laka adiga xataa intii nara allaaha ilaahay aan ka aragnood naga tusisay jahratan si caddaan ah. faaqadadkum asaaciqatu qayladii baa idin qabatay. marka waxaa idin qabatay saaciqadii iyo qayladii wa antum adinkoo tanduruuna arkaya, xataa intii naraa aan aragno allaaha ilaahay, ilaa ilaahay si caddaana aanu aragno. faaqadadkum asaaciqatu qayladii baa idin qabatay wa antum tanduruuna idinkoo dayaayoo eegahaya. way wada suuxeen. uma ka bacdi bacanaakum waan idin soo bixinay min bacdi mowtikum geeridiinnii kadib oo ilaahay baa naftii ku soo celiyey. lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan, inaad ilaahay u shukrisaanood rabbi u mahad celisaan, tii baad mudan tihiin buu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala. waayo dad aad iyo aad u dhib badan bay ahaayeen reer bani israa'iil. waxay ahaayeen sida qur'aanku uu noo tilmaamaya, aad baa loogu soo celcelinayaa qisooyinkoodu. sababtu waxay tahay waxaa la rabaa in la dareemo heerkay taagnaayeen, in si fiican laysaga ilaaliyo waxyaabihii qaladaadka ah iyo xumaantii markaa ay gelaayeen. uma intaa kadib bacanaakum waan idin soo saarnayoo waan idin soo bacfinay min bacdi mowtikum geeridiinnii kadib. lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan. wadallalnaa waan harinay calaykum korkiina alghamaama daruurtii ayaan idinku harinay. waanzalnaa waan dejinay calaykum korkiina almanna malab cireed baan ku soo dejinay, iyo wasalwaa shimbir la dubay. kuluu cunaanu ku niri min طayibaati maa shaykan ugu fiican oo rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. wamaa dalamuunaa manaysanna dulminin.
xumaantii iyo qaladkii ay sameeyeen ma aha waxay annagu nagu dulmiyeen, walaakinse kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafafyaalkooda yadlimuuna kuwa markaa dulmiya. xillibay waxay geli doonaan tiih aad iyo aad wareer u ah. yatiihuuna fi lardi wa 40 sana ayaa tiih looga dhigay. intay tiihii ku jireen oo ay wareereen yaa weli nimco kale alla u sii sameeyey subxaana wa tacaala. har ayaa korkooda lagu daboolay. wadallalnaa waan harinay oo waxaan ku harinoon ku daboolnay calaykum korkiina alghamaama daruur. wa anzalnaa waan dejinay calaykum korkiina almanna waasalwa malab cireed iyo hilib duban oo shimbireed baa subax kasta u imaanaya. ha kaydsaninaa la yidhi, cuna mid cusub beri idiin imaanayee. way dhihi doonaan waxaan rabnaa annaga khare iyo toon iyo digir iyo basal iyo wax noocaasoo kale yay sheegan doonaan. sidaa darteed buu ilaahay mar kasta wuxuu u soo dejinahayay malabkaa macaan iyo shimbirtaa duwan. kuluu cuna min طayibaati maa kan ugu fiicanoo rasaqnaakum aan idinku arsuqnay. wamaa dalamuuna manaynanna dulminin walaakin kaanuu anfusahum yadlimuuna. qaladkaa ay sameeyeen naftooday markaa ku dulmiyeen. waid qulnaa waxaad xusuusataan haddana wakhti aan idinku nidhi. waid qulnaa wakhti aan dhahnay udkhuluu gala haadihi alqaryata qaryadan ee tan ah galee baytalmaqdis ah. fakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna xaydu shi'tum meel allaala meeshii aad doontaan ragadan ayadoo waasica. risqigeeda asagoo ragad ah oo waasica meel allaala meeshaad doontaan ka cuna. wadkhulu lbaaba albaabkana ka gala sujadan idinkoo sujuudsan. idinkoo sujuudaya gala. waquuluu dhaha xitatun waxaannu su'aalanaynaa waa xito iyo dembi dhaaf. rabbiyow su'aasheega waa inaad dembiga noo dhaafto. sujuudna ku gala. oraahdiinnuna ha ahaata alloo noo dembi dhaaf. nakfir lakum waan idiin dhaafaynaa khataayaakum gafafkiine. qaladaadka aad gasheen baan idiin cafinaynaa. wasanasiidu lmuxsiniin muxsiniintan waan u siyaadinaynaa. muxsiniintii ixsaanfalayaalkana wanaagga iyo muxsinnimada ay sameeyeen yaan abaalkeedii ajirkeeda u kordhinaynaa. saa darteed baytalmaqdis gala idinkoo sujuudsan gala. waxaa suuragala sujuudda idinkoo nixino ahoo rukuucan gala. sidaa darteed dhaha ilaahayow dembiga noo dhaaf, ilaahayow na cafi, ilaahu xadgudubka naga dhaaf. waid qulnaa wakhti xusuusta aan idinku nidhi udkhuluu gala haadihi alqaryata qaryadan ee tan ah gala waa baytalmaqdise. fakuluu cuna minhaa xaggeeda xaydu shi'tum meel allaala meeshaad doontaan ka cuna ragadan ayadoo waasica. wadkhulu lbaaba albaabkana ka gala sujadan idinkoo sujuudsan. markaad gelaysaan sujuud ku gala. waquuluu dhaha xitatun alloo noo dembi dhaaf. su'aasheega waa dembi hoobin. rabbow waxaan kaa baryaynaa inaad dembiga naga tirtirtood naga hoobiso. intaa haddaad samaysaan nakfir lakum waan dhaafaynaa idinkoo waxaan idiin saamaxaynaa khataayaakum gafafkiina. wasanasiidu lmuxsiniin muxsiniintiinnana waan wanaajinaynaayo waan u siyaadinaynaa wanaaggii. markii sidaa la faray bacdamay dad dhib badan ahaayeen. fabaddala aladiina kuwii way beddeleen dalamuu dulmiga falay qowlan qowl bay ku beddeleen hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum loo yidhi. maxaa loo dhahay albaabka gala idinkoo sujuudsan? maxaa la yidhi dembi dhaaf dhaha ilaahu noo dembi dhaaf? way beddeleen. waxay ku beddeleen qowl wixii loo yidhi aan ahayn. meeshii sujuudku gala la yidhine ayagoo birada ku siqayo gurguuranayay galeen. meeshii la yidhi waxaad dhahdaan xitatun ilaahu dembi dhaaf noo sii oo dembiga naga hoobina waxay dheen xinta ilaah badari masagaan rabnaa annaga digir iyo waxaan u baahannahay soor la cuno. waquuluu xita baa la yidhi xinday ku beddeleen ilaahu masagana sii. meeshii sujuudku gala la yidhina way gurguurtoonoo birada ayagoo ku siqaaya sidii bay markaa ku galeen. fabaddala aladiina kuwii way beddeleen dalamuu dulmiga falay qowlan oraah bay ku beddeleen iyo hadal hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum loo yidhi. faanzalnaa kolkaasaannu dejinay cala aladiina kuwii korkooda dalamuu dulmiga falay rijzan cadaab baan ku soo dejinay oo min asamaa'i xagga sare oga yimid. waana bimaa kaanuu ahaasho ay ahaayeen sababtooda yafsiquuna kuwa faasiqnimoobay.
kuwa faasiqiin ah ahaasho ay ahaayeen sababteeda yaa cadaabka alla uga soo dejiyey. xagga sare ayuu markaa uga yimid, fabaddala aladiina kuwii way beddeleen dalamuu dulmiga falay qowlan hadal bay ku beddeleen hayra aladii kii kayrkii ah qiila lahum loo yidhi. hadalkii loo dhahay waxaan ahayn bay ku beddeleen. faanzalnaa kolkaasaanu dejinay cala aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay rijsan. rijsiga inta badan waxay tilmaamaan culimmadu inuu daacuun ahaa oo min asamaa'i xagga cirka looga soo dejiyey. aahaar baa laga qaataa daacuunku inuu ahaa cadaabkii ugu horreeyey ee reer bani israa'iil alla ku salliday subxaana wa tacaala. rijsan min asamaa'i, rijsi iyo cadaab baa xagga sare looga soo dejiyey. xagga saraa cadaab uga yimid, waana bimaa kaanuu ahaashahoodii ay ahaayeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo fala, kuwa falaagooba, kuwa diinta alla ka fogaada, kuwa khayrkii awaamirta alla diida. ahaasho ay ahaayeen sababteeda yaa rabbi cadaabka ku saliday subxaana wa tacaala. rijsigaasaa xagga sare markaa looga soo dejiyey, waa daacuunka. sidaa darteed buu xadiisku tilmaamay, rasuulkuna yidhi daacuunku wuxuu ahaa cadaab ilaahay uu ku salliday ummadihii adinka idinka horeeyey, ama dadkii adinka hortiina ahaa, ama reer bani israa'iil. ma jira addoon beled uu deggan yahay daacuun ku dhaca, ku sabra, ku ajir xisaabsada, aan cararin, beledkiisana isaga nagaada, ilaa haddii saa uu noqdo oo daacuun ku asiibo ee uu ku dhinto, ilaahay wuxuu uga dhigaa shahiid subxaana wa tacaala. waayo daacuunku wuxuu ka mid yahay cudurrada ugu halista badan ee dhibaatada badan. qof allaala qofkuu asiiboo ku sabroon cararin, beledkiisa ku nagaada, ilaahay subxaana wa tacaala darajada shahiidnimaduu ku gaarsiiyaa subxaana wa tacaala. saa darteed baa waxaa mamnuuca daacuunku beled hadduu ku dhaco adigoo jooga inaadan ka bixin. waa mamnuuc inaad ka baxdo. haddii beled uu ku dhaco adigoo aad u socotood rabto inaad gashana inaadan u gelin. waa sunno rasuul sal allahu calayh wasalam, waa xaaladna la faray. haddii beled aad ku sugan tihiin daacuun ku dhacana ha ka bixina idinkoo ka cararaya. way noo imaan doontaa, alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum. qolaa dhulkay deganaa intuu daacuun ku dhacay cararay, way firxadeen, geeri bay ka ordaayeen. qoladaasuu alla ku tilmaamaysa suuradday noogu imaan doontaa, alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim. ka warrama kuwii guryahooda ka baxay wahum uluuf ayagoo dhowr kun ah. maxay u carareen? xadara almowt, geeri bay ka digtoonaayeen. ilaahay baa ku yidhi muutuu dhinta, kadibna alla wuu soo nooleeyey. xaaladdaa waxay tilmaamaysaa geeri inaan laga firxan karin, lagana ordi karin. sidaa darteed buu reer bani israa'iil ilaahay nimcooyinkaa faraha badan ee khayrka badan markaa u sameeyey. fabaddala aladiina kuwii way beddeleen dalamuu dulmiga falay qowlan qowl bay ku beddeleen hayra aladii qiila lahum kii loo yidhi aan ahayn. hadalkii loo dhahay ee sujuud ku gala ahaa, hadalkii la yidhi ilaahu dembiga noo dhaaf dhaha ahaa, intii oo dhan way taqyiiriyeen, way beddeleen. hayra aladii kii hayrkii bay ku beddeleen qiila lahum loo yidhi. wixii loo yidhi wax aan ahayn bay ku beddeleenoo meeshii sujuud ku gala la yidhina gurguurashay ku galeen. meeshii la dhahay ilaahu dembi noo dhaaf dhahana ilaahu badarna siibay dhaheen. weligeed yaan laysku dembi dhaafine, haddii la doono waxaan cunnahana la siiyo. markay xaaladoodu saa ahayd, faanzalnaa waanu dejinay cala aladiina kuwii korkooda dalamuu dulmiga falay. markay xaaladdaa sameeyeen oo taqyiirka ay la yimaadeen oo wixii la faray wax aan ahayn ay ku kaceen, wixiina way qabanayaan, haddana sidii loogu talagaloo loo amray uma qabanayaan. wixii way samaynayaan, haddana sidii loogu talagalay uma samaynayaan. faanzalnaa waan dejinay cala aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay rijsan cadaab baan min asamaa'i xagga sare uga soo dejinay. waana bimaa kaanuu ahaasho ay ahaayeen sababteeda yafsuquuna kuwa faasiqooba. fisqigii iyo cisyaankii iyo madax adaygii iyo kibirkii amarkii alle ay ku faasiqoobeenay ka fallaagoobeen darteed yaa ilaahay cadaab xagga sare uga soo dejiyey subxaana wa tacaala. xaaladdaasay reer bani israa'iil ahaayeen, tiihii bay weli ku sugan yihiin, way oomeen,
biyo iyo waraab bay damceen. nebi muuse alla u baryi doona haddana, waid istasqaa muusa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajar. wabillaahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.